sagaal xildhibaan oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ku matali doona gobolka Sanaag ayaa si meeqaam sare loogu soo dhaweeyay degmada Garadga galbeedka gobolka Sanaag. Soo dhaweynta xildhibaanadan oo ka qayb qaadanaya gaadiid tiro badan iyo dadweynaha ku dhaqan degmada Garadga ayaa kaga hortagay duleedka degmada Garadga isla markaana u soo galbiyay dhanka magaalada degmada Garadga halkaas oo ay ku soo wareejiyeen shaariciyada waaweyn ee degmada Garadga. Guntiga gabagabadina ay iskugu soo biyo shubteen geedka nabadda ee degmada Garadga oo ahaa meel si meeqaam sare loo sii agaasimay isla markaana loo sii qurxiyay looguna talagalay halka lagu xildhibaanada iyadoo xildhibaanadan ay hadhimo sharaf u sameeyeen dadweynaha ku dhaqan degmada Garadga. Kumanaan ka mid ah shacabka degmada Garadga oo hoomay qabay soo dhaweynta xildhibaanadan oo ku sugayay geedka nabadda ayaa waayeelka iyo waxgaradka odayaasha haldoorka cuqaasha dhalinyarada degmada Garadga ayaa khudbado wax ku ool ka soo jeediyay munaasabadii lagu soo dhaweynayay xildhibaanada. soo isku duuban waxaanu qabnaa ina gobolka iyo degmooyinkiisa isku dhan wax u goyn kara waa kuwa 12 xildhibaan halka fadhiya mid aan garada cod ka helin ma jiro 12 xildhibaan mid aan meel walba gobolka ma jiro ducadu waxa weeye waxaanu ducaynaynaa waa maaha xaflad maaha waa duco waxaanu ducaynaynaa xildhibaanada in ilaahay ku asto. sidoo kalena sagaalkan xildhibaan ee ka mid ah 12 xildhibaan ee golaha wakiilada ku matali doona gobolka Sanaag ayaa ka mahad celiyay soo dhaweynta ballaaran ay u sameeyeen dadweynaha ku dhaqan degmada Garadga isla markaana kula dardaarmay inay maanta dhamaatay xisbiyada isla markaana ay mid yihiin una midaysan yihiin sidii gobolka Sanaag u horumarin lahaayeen. team ama team wada socda oo idin dagaal galaya idinka oo isku mid ah u tihiin ka doorateen waxaan wada lahay mid ah wada doorateen kulligeeyo waxa dhamaaday tartankii waxa loo gudbayaa inaynu gacmaha isqabsanno oo aynu midowno oo aynu xurguftii ay reebtay iyo tartanku gaaraan meesha ka saarno. waxaan dareemayaa farxad taageerayaashan iyo dadkan la kala taageersanaa oo dhami waxaanu wadnaa inaanu ka qayb qaadano shirgudoonka golaha wakiilada ma ihin xubno uu doonaya inaanu soo baxno kuraasta fadhiisanee shirgudoonka golaha ayaanu ka qayb qaadan doonaa 12kaasi ka midi. waanu dareemaynaa inaanu waxawiyaabaha ugu horeeya ayaanu wax ka qabanaynaa waa adkaynta nabadgelyada isdhexgalka bulshada annagoo aan kala qabiilahayn annagoo aan kala danahayn haddii la ilaaho waan isku duubnaanaynaa waan isku xidhnaanaynaa waxaanu ka shaqaynaynaa haddii la ilaaho horumarka iyo wadajirka gobolkan haddii gobolka Sanaag waa degmada musharaxiinta ka tartamaysay baarlamaanku ay soo wada baxeen iyaga oo taasina waxa sabab u ahayd iyagoo ilaahay qadaray subxaanahu wa tacaala dareen kale waa dareenta dadka awaanaya dhalinyarada Sanaagba inay dhammaatay doorashadii in la hore loo soconayo in laba qof oo kastoo iska horyeemisa saamaxaan adeegno inaanu sharciga shuruucda waddanka kor u qaadno ayaanu ballan qaadaynaa. waxaana tamarkaan Garadga waxaana shacab salaaday meel fog kama iman marka hore dadka qarankaanu qabanaynaa iyo deegaanka iyo dalkaanu soo shaqaynaynaa hadda gabadha anaga soo daba raacina howlana ana cod baan ku gurida ana cod baan ku gurida waa inaan musqusuu doono taanu soconnaa waa inaanu garan dhincameelno taanu soconnaa in isbitaal Garadga oo tayra amarno taanu soconnaa waa inaanu waxbarasho aanaynu nabadgelyo ku shaqayno. waa madal sare warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Somaliland Garadga.